بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا ciwaanka hore u soo aragteen ba muuqaalka waxaan rabaa inaan kaga hadlo sida aad live ugu dhigi lahayd muuqaal aad horay Facebookgaaga ama YouTube-kaaga aad u soo gelisay marka Facebook-ga marka live ugu dhigayna muuqaalka YouTube yaa linkiisa soo qaaday haduu Facebook yaa linkiisa soo qaaday waa intaas un marka aan ku tuso soo dhow fadlan marka ugu horeysa waxa u baahan tahay inaad la soo degto application loo yaqaano GoStream Play Store-ka kala soo degaysa muuqaalkiisna sidaas ayuu u egyahay markuu sidan kugu soo dego waxaa sameynaysaa waa wejigiisa hore kan qaybtan profile-ka ayaa dooranaysaa wuxuu kaga baahan yahay inaad ku xirtid account ama Gmail iyo password hadda aniga Gmail password hore ugu xiray laakiin hadda waa ka bixinaysaa aad ku tuso sign out ayaan leeyahay application wejigiisa ayuu soo baxayaa halkan ay saaran tahay calanka Turkiga waa ka dejinaysaa oo waxaa saaraysaa luqadda English-ka iyo calanka Turkiga luqadda Turkiga saaran meeshaas aad dooranaysaa waxaa ka dooranaysaa English oo America oo London ah kadib markaad dooratid qaybta ay ku qoran tahay sign up Gmail-ka samee lahayd waaye qaybta sare Gmail ku qor qaybta hoosna password oo hal password loo maraa ku celinaysid marka qaybta sare waxaan sameynaa hadda Gmail-ka sameynaynaa waxaan ka dhigayaa hadda test@gmail.com ilaa maadaama waxaan tijaabi ay yihiin test@gmail.com ayaan dhahayaa halka kasii hoosena waxaan gelinayaa password ayaan gelinayaa waa Gmail cusub sameynaysaa account cusub sameynaysaa 1 ilaa 6 ka dhig inta 1 ilaa 6 ka dhig Gmail-ka kor password-ka aad gelisay hoosna isla password-ka ayaa gelinaysaa kadib waxaa leedahay sign up marka sign up aad dhahdid yani Gmail-kii wuu sameysmay waxa u baahan tahay in haddana mar labaad aad kiciso waxaad taabanaysaa marka sign up taawo Gmail-ka uu hagaagay yani account-ka aad samaysatay halkan xogaa uu wareegsanaya sugaa oo soo jeedo waxa dhahay Gmail-ka hore ayaa loo adeegsaday wax ka sameey marka waxaan sameeynaa meesha test aan dhahnay waxaan ku dareynaa lambar aan ku dareynaa lambar aan siinayna test laba camalanayna test qof iska leh marka aniga hadda lambar aan ku dareynaa hadoo kacaya uu sameysmo waa kan marka markuu sidaa u sameysmo waxaa rabtaa marka inaad hadda howlgasho ama wixii aad bilowdo waxaan sameynaynaa marka qaybta Gmail-ku ku xiran yahay kan account-ku ku xiran yahay profile-kan ka imaanay caadi uu xiran yahay waxaan tagaa marka halkan ay ku qoran tahay upgrade account saan ku tuso waxyaabo ka baxsan cashirkeena halkan waxa u jeedaa application-ka wuxuu ku dhahay waa free asoo lacag ayna wuu jiraa qaybta free-ga waxa u jeedaa inay qaybta sare ku qoran tahay waxa lagu ogol yahay hal mar live maalintii sidoo kale watermark ayuu wataa geedkan marka live ay ka gashid Facebook aad dhigtay muuqaalkaaga qofka caadi u fahmaa waxaan in live stream kan inoo application in laga soo galay oo hoos wax ku soo qoraa go live stream laakiin halkan hada lacag bixsid wuxuu ku dhahay watermark la'aan waaye maalintiina 10 muuqaal oo waxa soo gali kartaa 10 live soo gali kartaa yani marka fees-kan ayuu leeyahay qaybta sare automatic qorna ku dhufanay automatic marka ku dhufto waxa ujeeda waxa ku soo baxay from link video halkan waxaan rabaa marka video-ga aniga live ka dhigi rabno rinkiisa oo rabaa marka waa ka bixinaa halkan waxaan aadinaa YouTube-ka waxaan soo qaadinaynaa linki kadib linka inta dhigi doonaa waa hagaajinaynaa kadib asaa live noqonay fadlan hadda hal mar waxa aada Facebook-ga ama YouTube-ka meeshii markaas ku fudud laakiin YouTube-ka ay fudud waa link ka soo qaadaa aniga hadda waxaan joogaa YouTube-ka saa u jeedidba muuqaalka aan rabo inaan qaadano waa kana marka YouTube marka linki ay qaadato waxa sameynay saddexaas ilaga taawanay waxa taawanay halka ay qorata share ama share marka taawado kadib wuxuu ku dhahaa intee ku share gareynay WhatsApp-ka iimaha meel yar copy ku qoran tahay ku soo baxaysa marka copy link halkaan aan ku dhufanay marka copy link ayaa leedahay sidaas ayaa bal linkiga ku soo qaadatay Facebook-ga muuqaalkan hadda anaga waa wadana linkiisa soo qaadanay hadda marka sida caadiga ahayd waxaan u laawanaynaa application-keena si aan u bilaawno shaqada in muuqaalkeena uu live noqdo marka hadda application-ka aan aadno oo aan ka soo tagno meeshan halka ay qoran tahay from link video ayaa taawanaysaa si aad linkiga aan soo qaadan u dhigno xogaa marka wuxuu sameynayaa waraadina kadib meeshan link video YouTube oo Facebook ay qoran tahay ama linkiga meesha Facebook aad soo qaaday dhig aad tuujinaysaa ama riixay waxa dhahay marka paste ama paste si aad u dhigto muuqaalkii aad soo koobiyay linkigiisa kadib waxa leedahay add marka aad dhahdo marka wuxuu raadinayaa muuqaalkan ama linkiga inuu sax yahay in kale oo hubinaa marka meesha laga keenay hubinaa kadib meeshan title-ku wuxuu ku soo qoraa ciwaanka linkigan ayuu ku soo qorayaa hadda aan fiirino hawaakan wuxuu ku soo qoraa sida loo dhaqaaleysto
daatada GB ama MB waxay tahay waa sax ciwaanka muuqaalkeena noocaas ayuu ahaa kadib next ayaan leenahay qaybta hoose kadib next ayaan leenahay meeshan waxba kama bedelayno next ayaan leenahay next marka dhada kadib wuxuu ku sii gudbinayaa optionka kale ee ku qoran tahay meeshan no loop iyo 480 oo ishaakaasi resolution ka ah sidiisa ku sii dhaafayna san kadib next ayaan leenahay kadib waxaan leenahay meeshan waxa ku qoran post now hadda post garay meeshan waxa ku qoran add meesha adka ayaan daawanayna si yani ciwaanka aan kasii deyrabno muuqaalkan aan u doorano ilaan ciwaan aan ka deyrabna ama facebookgeena profilkiisa ka deyrabna profilka ama meel dooro ku dhaay ama page baarta inaad kasii deysid kadib halkan ay ku qoran tahay add more account ayaan daawanayna Facebook si aan u soo darno ciwaankeena Facebook halkaas ilagtaas yaraan rabo markii inay soo gasho facebookgaaga caadiga ah kadib wuxuu noqon doonaa live ayuu noqonayaa marka hadda aan kusoo darno aniga facebookgeena si facebookgaaga aa usoo darta marka halkaas taabo marka adka ay ku qoran tahay add more account Facebook marka add more account Facebook aa ku dhufatid waxaa kusoo baxayso calaamadan oo balaasta ah oo kadibna Facebook ay ku qoran tahay balaasta taabo calaamada balaasta ah taabo marka calaamada balaasta ah taawatid iska leexi kan cafwan reer WhatsApp ay dhibaayo kadib waxaa leedahay calaamada adka Facebook taabo marka taawato kadib wuxuu gudaha u galaa inuu kugu sii xir facebookgaaga waa ujeeda meeshan wuxuu ku qorayaa continue with facebookgaaga ku sii soco continue with Facebook marka aad kadib waxaa ujeedaa in facebookgeena hadda oo bilaabay inuu ku sii xiro qaybta kale oo wareegsanaya marka loading uu sameynayaa waxyar aan sugno okay hadharsanin oo xogaa naftiga waxa laga yaabaa inuu ku daahiyo bal xogaa sugadina xero kooban sikamo waxaan inay sax yihiin in kula raadinaya yani waa lagu hubinaa ka ujeeda oo soo qabta hadda continue as nabadoone waa sax ani Facebook nabadoone igu qoran continue with nabadoone ku qor marka nabadoona taabanaan hadda aduu facebookgaaga taabanay facebookga taabanay shaqadan saa wato log out aa dhehina taabanin korkaas asa shaqo wato okay hadda waa soo qabtay ciwaankeyga macal username-keyga wuu soo qabtay nabadoona igu qoran username-keena bidaacada igu qoran marka halkan markaad joogtid caadi waa laabanay marka waa soo laabanay meeshan baagta ka laabanay ama qaybtaas koraa ka laabanay yani waa ku xirnay wax kale nooma dhibna hadda waa tijaabinayna oo kaliya waa soo laabanay kadib waxaan tagaynaa qaybtii shaqada noogu socotay halka home ka taabanay kadib waxaa leedahay halkan dad meeshaan aan joognay marka waxaa taabataa halka ay qoran tahay add stream taabo add stream markaa taabato kadib wuxuu sameynaa qaybta kale noo gudbinaa waxaa rabnaa hadda qaybta sare inay soo gasho facebookgeena magaciisa inuu soo galaa rabnaa facebookgeena magaciisa inuu soo galaa u baahanaa hadda add stream markaa taabano waxaa taabanaysaa halkaas ay qoran tahay post now halkaas mar haddaan faahfaahin yarkaas iyo post now hadda ma post garaynay oo postiga hadda ma sameynay waa mise timer waqtiga ku xiraya waaye waqti ma ku xiraya haddaan sameynaa leeyahay marka hadda qaybta hoosmatigan taabanaa kadib halkaan wareegsanaa majeedaa meeshaas wareegsanaysa ilagta yara daayad aa ku dhaya meeshaan facebookga loo baahan yahay waxaa soo galay nabadoon bidaa oo facebookgeyga ah halka hoosna wuxuu ku siiyey profile wuxuu ku wadaa facebookgaaga profilkiis maa kasii daynaya haddii aad facebookgaaga profilkiis aa kasii daynaysid add stream aa leedahay haddii kalena meeshaas fur oo waxaad dooran kartaa pages haddii aad leedahay pagekaaga ka digi kartaa sidoo kale gruubyadan dhexdooda ka digi kartaa inaad online iyo kii aad tahay live aad tahay gruubyadan kusii diyo kuleeyahay gruub badan hadda ku jirto meesha kugu soo bandhigaa marka haddana gruubi uma baahno waxaan rabnaa in aan kasii dayno facebookgeena profilkiis inaan kasii daynaan rabnaa kadib waxaan leenahay add stream waana meesha ugu dambeysay waaye hadda shaqada ayuu bilaabayaa add stream markaa dhahda kadib waxaan leedahay next ayaad leedahay next markaa dhahda kadib wuxuu noo gudbinayaa qaybtii ugu dambeysay oo aan ku ogaan lahayn waxaan ujeedaa wuxuu ku dhahay ugu ku dhahay live streamkaaga hadda ayuu bilaabanayaa qaybtaas ujeeda ay ku qoran tahay process markay ku qoranto markay ay isku bedesho stream ayuu facebookgeena livekiis bilaawday hadda processkeeda sii socdo stream ayaa kusoo qormayso markii live uu noqdo inta marka stream ay kusoo qormato kadibna waxaan aadi doonaa facebookga waxaan ku tusi doonaa muuqaalkan inuu live yahay iyo in kale ayaan ku tusiyaa waxyar aan sugno process ayuu wadaa hadda stream ayuu isku bedelayaa stream macnaha hadda ayuu ku jiraa live-ka facebookna waa laga sii deeyay profileka uu tagashay ayaa laga sii deeyay marka
aan sugno xogaa yar cafwan. Okay, process haduu dhameeyay ujeedin waxaa soo qormatay stream oo shaqadii ayuu bilaabaya. hadda waa live ka ku sii jirnaa. marka waxaan rabnaa inaan aadna facebookgeena waan soo fiirineynaa facebook gal bal fiiri muuqaalkeena inuu live yahay in kale ayaan leenahay. facebooka xogaan daahaya marka loo baahan yahay sama soo isdaahina. waa kan hadda uu raadinayaa facebooka oo soo kacay. waxaan arkaynaa marka hadda profilkeena aan galeynaa. profilka markaan galna kadib muuqaalkeena inuu live yahay in kale ayaan hadda arki doonaa insha Allah. okay waa iskeenay. waxaan sameynaynaa marka qaybka home ka tag saddexda ilig ee sare gacantaada midig facebook ay taabo. profilka waa taqaanaa sida loo tago. profilka ay tag marka dhow adi marka muuqaalkaaga dhigitid si ay u aragto muuqaalka inuu live yahay in kale. hadda waxaan leenahay profilkeena tagaynaa kadib waxaan fiirinaynaa muuqaalkeena inuu live yahay in kale. saddexda ilig sare gacantaada midig ay taabanay kadib profilkeena ayaan ku dhufanaynaa nabadoon abidaa war maxaa kugu soo kordhinayo live aan kusoo gelinay aan leenahay. qaybta hoos u soco xogaa qadka culeys waa dareemaysaa. profilka tam ii soo qabanaa cafwan haliga rahan noqdo ali cudur daaro aan socdo bal aan fiiriyo maxaa imaaday meeshan. waa ka maasha Allah waa kana 3 minute ayuu yaalaa live ayuu ku jiraa. ujeedaan live streamkan ku jirnaa hadda dadaaba like saaray maasha Allah muuqaalka waa taaban kartaa deertiisa waa aragtid waa taabanaynaa inta qof fiirsanaysa waa aragno. qayb sar waxa ujeedaan nabadoon abidaa is live now hadda iyo live ku jiraa leeyahay. geeskaasna waxaa ku saaran calaamadii live-ka. muuqaalkan wuxuu ka hadlayay sida loo dhaqaaleysto daatadaada aan ku dhufana bal aan fiirin aysan waa kan dad fiirsanaya wuxuu ku dhahay 3 qof fiirsanayso 5 qof fiirsanayso qaybta sare. Badruddin iyo Ibra Ismail ayaa hadda daawanaya muuqaalkaaga ayuu leeyahay. marka sidaas ayaa live ka loo gashtaa. dad badan facebook waxa aragtaa muuqaalo mar hore ah ay waxay kaga soo dhigayaan live marka dadka uu indhasar caadina waxaas live ma aha waa laga dhigi karaa noocan ayaa lagu dhigi karaa. fadlan waa intaas fadlan hadda janaalka ku cusubta subscribe saar lan wadaag asxaabtaada oo muuqaalka u share garay. haddii aad ka faa'iido muuqaalka like saar. inta aan ku kulmayno muuqaal noocan ahna waxaa idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.